wafdigan ay hogaaminaysay xogayaha arrimaha bulshada xisbiga mucaaradka ee wadani ee heer qaran Marwahindo Jaamac Xirsi Gaamey isla markaasna ay safarka ku weerarayeen Faysal Axmed Saxar oo kamid ah qurbajooga xisbigaasi ee dalka Kanada ayaa safar indhayn ku qotomay wax ka wadaanshaha baahiyaha ka jira deegaanada Fiqaayuub iyo deegaanka Jablaha ugu qotomay waxaana markii ay wafdigan halkaasi ay gaareen ay xog waraysi la yeesheen dadweynaha iyagu ku dhaqan deegaanadaasi ayaa iyagu soo bandhigay iyagu wafdiga u soo bandhigay caqabadaha iyo waliba dhibaatooyinka ku gadaaman deegaanadaasi waxaana hadaladoodii kamid ahaa sida tan marka hore deegaan balaaran baan nahay hadii bilankii gobolka balaaran ka tirsannahay dayacayaga bati aad baan u soo dhaweynaa wixii wax nagala qabanaya wixii oran laaba ragga yidhi waxaan doonaynaa ambalaas ma indhaweedna gabadh baabuurta ku dhacday meesha ku dhacday xafad baa lagu soo qaaday waxaan u jilicsanay ambalaas waxaan u bilaasay weelkii wixii birihii lagu guri lahaa xashiish baana rogay walaalayaal waxaan isku dhaweynaa qamco furan iyo la furan inta wax raaca kulli doodayaal baa ka hadlay malaawun baahida deegaanka marka hore jiidan aan joogno waa deegaan balaaran Fiqaayuub hindaysaad warka ku haysay waa deegaan balaaran madrasada ugu qaalisan waa saldhiga maan yihiin laaw farxadalkiisa ay ku jirtay hadii de gabadhii imanka naga multo naga dhig baxdo karkaarka degdega mal waxaan ku gaarsiina buuxo waa raflow waa kulli taana dhibteeda ayay leedahay alxamdulillah ilaahay bas ka kaayta kuleeya inamadii yaryara iskuulka maanta nooga bixi lahaa mid walba dhuxul buu riday jiigada loo dhiibay waa loo yeeray hawo iskuulkan wax weey 2022 laga jiray kuwa loo yeeray oo dhuxulka ridaya waa ardaydii fasalka afraadna ka mariyeen kuwa weey ku kala waan naga deeday halka maxaa jira hadaba markaan ku leeyahay anaba waan xirxan lahay agaan ku xilnaa deemni meelhin haday dawladdu wax noo qabanaysa ay tahay oo ay wada qura noo samayso halkii aanu maalin gaari noo soo maray aanu maciishada aanu ku doonaa noo soo maraba habeenkii dambe aanu aragnaa iyadoo gurgur ka taagan yahay 14 baa hadda waxaanu ka soo wareegnaa istabta shishadeeda hadda baabuurku noo soo maraa inta soo baabuur waa ku dhacday inta soo baabuur waa ku aasantay wada aan samaysnay maalintii walba dawladda ay ibinaysa dhulka oo aan wadada aanu mar lahayn baan laanahay iminka tan ugu darnay waa taa ugu dambeyntii waxaa hadalka qaatay mas'uuliyiinta wafdigani ka socday xisbiga mucaaradka ee wadani waxaana ballan qaaday inay wax ka qaban doonaan intii kraankooda baahiyaha ku gadaaman deegaanadaasi waxaana hadaladoodii kamid ahaa sida tan dhici karto meelda inay ka maqnaato astaantii dawladdu totally oo aanay kaba muuqanin marka dareenkaygu wisiin waa in halka ka baxo yani qurba joogtii oo kaliya marka tan gudbiyo maxaynu ka qaban karaa dhibaatada hadii aanay banaanka u saarin waxa ay qabaan hadii aanay ka qaylinin wax weyn cidina bartooda ugu imanayso laakiin markaan arkay in deegaankayga ka aradan yahay waxa kaliya aan qaban karaa ugu yar waxa weeyaan inay dayaca ka muuqda iyo dawlad la'aanta ay dabada u baxdo oo dadku ogaado waxaan ku soo ururinayaa hadalkayga baahidiinu maaha wax la koobi karo maaha wax laga qaban karo anigu ka xisbi ahaan waxaan ka socdaa xisbi mucaarada xisbiga mucaaradka awoodiisu way gaaban tahay waad aragtaan dalka oo dhan kiide aynu u wada dhiibnay ee kulmiye ahaa ayaa idin soo eegina kari waayay marka waxa koobaad ee anigu idin ka hawlgelaya waa ambalaas ahaan waan ka hawlgelayaa runtii anigoo ku rajaweyn inaan waqtiga maanta ay xigay aan diin imaado aan keeno xukuumaddu wax way qabataa sida ay Faysi ka dhawaajisay laakiin waxay qabataa meel uu wadani wax geeyay wax geysaaye way yartahay in iyadu meel la damacdo qof ay jeceshay meel uu joogo laakiin kuma darin maxamed saciid gaxnug telefishinka caalamiga Somali Channel magaalada Burco ومحمد إبراهيم حسن شبكة عالم جهرولاد نيوز برا